daacad noqo, weligaa ma yeelatay dooq aan caadi ahayn oo saaxiibadaada weligooda aysan fahmin, ama waxaa laga yaabaa inaad ku waanlayd shay ama wax uun isla markaana saaxiibadaada kugu xihan ama familkaagaba ay heli kari waayeen wixii aad ku arkootay. malaha kulligeennu waxaynu soo marnay wax la mid ah, laakiin dadka aan maanta kuu sheegayo waxay leeyihiin wax ka badan balwado la yaab leh. iyagu kama xishoonayaan inay sameeyaan. maanta waad la kulmi doontaa dadka qaar oo aan dan ka lahayn fikradaha dadka kale oo sameeya waxa ay doonayaan. fiishi oo ah haweeney balwadeedu yaa badan tahay, ahna mid dhab u jecel dabeecadda nolosha, gaar ahaan shinnida, oo ku nool magaalada Kerala ayaa barnaamijka noo furaysa. waxay haweeneydan u ogolaatay shinnidan aad arkayso ee kumanaanka ah inay dadaan wejigeeda si ay dadka ugu wacyigeliso badbaadinta shinnida. muuqaalkan yaabka leh ayaa la duubay bishii 6. jiisha oo u ogolaanaysa shinnida malab keentada ah inay ku soo dul wareegto wejigeeda iyadoo ay la socdaan labadeeda carruur oo u muuqda xitaa kuwa aan babaqayn. hal mid keliya ayaa ku qaldami karta iyada ama carruurta inay waalaan ama ay qaniinaan, laakiin jiisha ayaa xirxirtay caqliyad adag oo ka dambaysa qaabka ay ula macaamilaysa shinnida. waxaan u tixgelinnaa malabka inuu yahay daawo ka hortag u ah cudur kasta, ayay tiri. haddii aan cunno malab maalin kasta, lafaheenna iyo ilkaheennu way sii xoogaysanayaan, bay tiri. dhammaan waa inaan haysannaa hal barxad oo shinni ah, bay tiri, ugu yaraan guri walba ah. hooyada labada carruurta haysata ayaa sheegtay in dakhliga ugu badan ee qoyskeeda uu ka soo galo malabka. waxayna sheeganaysaa inay haysashada hal beer oo malab ah ay ku siin karto hanti tiro badan iyo faa'iido aan xad lahayn. markii la weydiiyey sababta ay u go'aansatay inay u doodo shinnida, jiishaa waxay tiri sababtoo ah shinnida malabka soo saartaa waxay muhiim u tahay deegaanka, iyo baabi'inta shinnidu ay saamayn xun ku yeelan karto dabeecaddeeda. jiishaa waxay rajaynaysaa in maalin uun ay gasho buugga Guinness of Records. looma baahna in laga boqo, bay tiri, cayayaanka yaryar. shinnida malabka wax ma weeraraan. haweeney cunaysay carrada 60 sano oo ka mid ah nolosheeda. iyadoo 15 sano jir ah ayay soo bilowday cunidda carrada. haweeneydan balwadda waalida ah leh ayaa ku nool xaafadda Paradise ee deegaanka Banaras ee dalka Hindiya. haweeneydan waxay sheeganaysaa markii ay jirtay da'da 15 sano inay xanuunsantay, caloosheeduna ay aad iyo aad u dibirtay. intii lagu guda jiray daaweynteeda, dhakhtarkii loo geeyey markuu arkay xaaladda wadna garaac ee gabadhaas, wuxuu u sheegay inay qaadato nus galaas caana ah iyo 2 qaado oo ciid ah maalin walba. tan iyo markaas haweeneydan waxay caadaysatay cunista ciidda. yaa salaam, waxaan u malaynayaa badankeen carro cunitaanka inaan soo wada marnay markii aan yareen, hadday noqon lahayd dagaal aan la galno saaxiibadeen, ama markii yaraantii carruurnimada ay noo geysay. laakiin haweeneydan waxay 60 sano u soo cunaysay carradan cunto ahaan, iyadoo jidhkeedu uu la qabsaday, dhuunteeduna ay noqotay mashiinka carrada. maalintii waxay cuntaa 1 kiilogaraam oo carro ah. yaabkiis ma iyadaa weli lisgaarayba. nin mar walbaba jecel inuu ka soo dhex muuqdo wararka tiiviyadu baahiyaan. shakhsiyaddiisa caanka ah waxay ku dhuumaalaysanaysaa muuqaalada warar badan oo toos looga soo tabinayay warbaahinnada BBC, ITV, Sky iyo Channel 4. xaqiiqdii tani waa joogtaynta Paul Yarrow ee tiiviyada, iyo in aqoonsigiisa uu noqday mawduuca lagu gorfeeyo xanta internetka ugu weyn, iyadoo hal bog looga duubo muuqaalkiisa shaashadaha. laakiin inkastoo daawadayaal badan ee telefishinada ku xiran marka ay daawanayaan ay ku dhawaaqaan isaga, shaashadda dhinaceedaas ayuu ka muuqdaa ayay dhahaan mar kasta uu shaashadda ka soo muuqdo. taa beddelkeeda, ninkani wuxuu sheeganayaa inuu doonayo keliya siduu ku burburin lahaa dhaqanka autocuti ee ka dhex jira wariyaasha dhexdooda, kuwaasoo keliya ay ugu oggolaadaan dadka wanaagsan isteel ahaan inay ka soo muuqan karaan telefishinka marka wararka ay soo tabinayaan wariyaashaas. cayilnaan xaddhaaf ah awgeed ayaa la iska kay indha tira buu yidhi, iyadoo laga yaabay inaa hayay qodob sax ah oo aan ku doodi karay ama aan kaga doodi karay arrin ku saabsan wax gaara ama wax telefishinku markaasi uu faaqidayay. laakiin mikrofoonka mar kasta waxaa loo gudbinayay qofka ila socdo, aniguna dhinac ayaa lay marinayay buu yidhi.
wuxuu leeyahay muhiimadda aniga arrimahan aan u samaynayo tviyada aan uga soo muuqanayo waxay tahay inaan caddeeyo inaan joogo maadaama in badan aad ii riixdeen buu yidhi oo dhinacaad igu turteen. markii ugu horraysay wuxuu u yimid indha-indhaynta guud markii majaajiliste Russell Howard lagu magacaabo oo ka soo muuqday barnaamijkiisa BBC-da isagoo ku soo bandhigay ninkan inuu yahay nin buuran oo doonaya inuu TV-ga soo galo. maalintaas ayay ahayd markii cuqdadda ay u bilaabatay. runtii dadka qaar dunidan aan ku nool nahay caan ayay iska noqdaan iyagoo wax badan aan samayn. nin cuna keliya hilibka cayriinka ah muddo 10 sano ah, aabbahan 4 carruurtaa leh wuxuu ku adkaysanayaa in cuniddiisa ay caafimaad qabto, wuxuuna siiyaa 4tiisa carruur sidoo kale hilib aan la karin. ninkan haweenaydiisu ama xaaskiisa waa haweenay vegetariana ama cunto khudaarta oo keliya. iyadu weligeed ma aysan dhadhamin hilibka. ninkan caloosha idaha ayaa u ah midkuu aadka u xiiseeyo, wuxuuna u qaataa cunto fudud oo degdeg ah. Nancy ninkan lagu magacaabo wuxuu sheegtay inuu xitaa cuno hilibka markuu qurmo, isagoo sheegay inuu qayb muhiim ah ka yahay cuntada caafimaadka leh hilibka qurunka ah. wuxuu yidhi mar kasta oo aan helo xayawaan cusub waxaa jira wax ku saabsan dhiigga cusub oo kiciya shucuurta rabitaanka cuntada. wuxuu cabaa dhiigga sidoo kale cuntada kadib, isagoo hab yaraatee wax la kariyey aan afka gelin muddo 10 sano ah. hilibka qurmay waa qayb ka mid ah buu yidhi cunnada dabiiciga ah ee ku dhowaad ugaarsado kasta oo meerahan ku nool uu rabo. barnaamijkan haddii ku xiiso geliyay laag inoo saar, fikradahaagana waa inoo muhiim, hoos inoogu reeb.